الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta waxaynu ka hadlaynaa aqoonta diinta iyo aqoonta nolosha. Aqoonta diintu waxay waajib ku tahay qof kasta oo muslima hase ahaatee waxaynu daliil maanta u keenaynaa aqoonta nolosha ilaa 7 daliil oo sheegaya qofka muuminka ama muslimka inay waajib ku tahay in uu barto aqoonta nolosha. aqoonta diintu way dhamaystirantay waa daliilka koobaad. waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. maanta ayaan idin dhamaystiray diintiinii. Marka waxaa laga yaabaa nolosha inay wax badan isbedelaan, waxaa laga yaabaa arrimo badan inay soo kordhaan, hase ahaatee diintu waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhigay asallo waaweyn oo fadhiya. asalladaasi ayuunbaa loo noqonaya, ma jiraan wax cusub oo diinta la samaysanaya bal lasoo kordhinaya. ka waran culumta nolosha. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi sanuriihim aayaatina fi l-aafaaq wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq. waxaan tusi doonaa calaamadahana lagu garanayo fil aafaaq, jihooyinka ayaan ka tusi doonaa, wa fi anfusihim iyo naftooda si ay ugu caddaado annahu alxaq, in macnaha qur-aanku uu xaq yahay ambaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu xaq yahay. marka cilmigii kale waa ka Ilaahay waan tusaya. xataa qofku qiyaamaha markuu kusii dhow yahay ayaa laga yaabaa qof inuu kitaabka kala furo qur-aanka, wuxuu akhrinayaa aayadan qur-aanka oo mustaqbal ahaan loo akhrinayo. sanuriihim waan tusi doonaa, hadda qiyaamadiiba taagan oo soo dhow. macnaha waxa mar walba wax baas cusub oo soo baxaya, maalinba waxbaa la ogaanaya. dhakhtarnimadii waxbaa ku kordhaya, injineernimadiina waxbaa ku kordhaya, waxyaabii la midka ahaa. daliilka labaadi waxa weeyaan waxa uu naga caawinayaa culumta noloshu fahanka diinta. dhakhtarka muslimka ayaa sharaxaya xaaladaha sharaxa u baahan si loo garto xalaasha iyo xaaraanta. waxa weeyaan qofka dhakhtarka muslimka ah waxa uu sheegayaa qofkii xanuunsanaya, waxa uu sheegayaa haddii macnaha diintiina wax ka garanayo, cilmiga kalena wax ka garanayo, waxa uu sheegayaa wixii xaaraan iyo wixii xalaal ayuu kala garanaya. qof aan isagu ahayn muslim baan ahayn ambaba ma kala garanayo, isagu waxaa laga yaabaa inuu wax xaaraana ku dhahdo oo dawa ahaan u qaado. waxay naga caawinaysaa fahamka diinta. baanankeenna waxa diinta islaamka waafajinaya aqoon-yahankeena. bal waxaa kasoo qaaday inagoona haysan qof baananka wax ka yaqaana. suurtagal maaha in baankii lagu wado ama lagu maamulo diinta islaamka shuruucda u dhigtay haddii aanu jirin qof garanaya baankii wax ka garanaya. sheekh de ma maamuli karayo, ka wadnaa qof diinta qura garanaya. waxaynu u gudbaynaa imika daliilka saddexaad. maxaynu ku bedelanaynaa haddii aynu ka tagno aqoonta nolosha sida dhakhtarnimada, injineernimada iyo culumta kale ee la midka ah? hawee qowmiyado kale inaynu ku tiirsanaano ayaynu uga gudbaynaa. cuntada oo kale, dhammaan noocyada cuntada waxa aynu kala soo degaynaa meel aan macnaha inaga ahayn, dhaqaalaheennina aynu ku bixinaynaa. waxaa sidaa la mida dharka iyo maryaha iyo waxyaabaha hogee la xidho oo dhan waxaynu kala soo degaynaa meelo aynaan inaga ahayn oo aynu ku bixinaynaa lacagteena. waxaa kale oo iyaduna taa la mid ah culumta ama agabka waxbarashada dhammaantood amba siday u dhan yihiin waxaynu kala soo degaynaa meel aan meesheena ahayn, isla markaana xoolaheena iyo lacagteena ay ku baxayaan. taa waxaaba kasii khatarsan agabka dowladnimo iyo macnaha wixii dowlad lagu noqdo oo dhan ayaa waxaad kala soo degaysaa meel aan meeshaada ahayn. weligaa waxaad ku tiirsanaanaysa qof kale ayaad ku tiirsanaanaysa. waa haddii aad iska dayso inaad wax ka barato culumta nolosha. daliilka afraad, aqoonta nolosha iyo qur-aanka iyo xadiidka. qofku marka uu isku dayo qur-aanka iyo xadiidka inuu sharaxo oo kale, waxa weeyaan mararka qaarkood waxa sharax waafiya uu ka bixin karaya marka uu aqoon u leeyahay macnaha koonka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuuray. buuruhu waa musbaar ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qur-aanka ku sheegay. dadkii hore waxay odhan jireen waxa weeyaan waa adag yahay, waa sidaas, waa xoog ayay leeyihin. laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaa imika la ogaaday in buurta inta muuqato mooye inta qarsooniba ay badan tahay.
musbaarka inaad aragti mooyaane inta qarsoon ayaa badan. marka tusaalaha in lagu yidhaahdo buurtu waa musbaar waxa weeyaan waa tusaale aad u macnaha u sharaxaya waxa meesha ka dhacaya. waxa kale oo sheegayaa musbaarka shaqadiisu waxa weeyaan inuu meesha ku hayo wixii lagu dhajiyey, sidaas si leeg buurtu waxay shaqadeedu waxa weeyaan dhulka inay halkaa ku hayso si aanu inoo dhaqdhaqaaqin. ta kale dayaxa ayaa kala dilaacay. waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka yidhi inshaqa alqamar, dayaxu wuu kala dilaacay. waxay ogaadeen qolada naasa ee Maraykanku in dayaxu uu kala dilaacay markii ay arkeen jeex weyn oo ku hareereysan gebi ahaanba dayaxa. markaas waa aqoonta nolosha haddii aad wax ka barato waxaad wax ka baranaysaa fahanka iyo sharaxa qur-aanka iyo xadiidka. tusaalaha daliilka shanaad waa dacwadda. qofku haddii ilaahay ugu yeedhayo dadka waxa u baahan yahay inuu noqdo qof sax diinta wax ka garanaya, sidaas si leegna waa inuu noqdo qof culumta nolosha wax ka garanaya si dadku ay u dhageystaan. su-aal yaroo fudud, caruurtaada yaad raacin lahayd, ma qof aqoon leh mise qof aan aqoon lahayn? qur-aanka aqoonta ka hadlaya oo aad samaysay ayaa dadka tusaysa. oo qofka haddii uu ku dhaqmayo wixii ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ka hadlayaa cilmiga iyo sida loo baranayo, wuxuu ka hadlayaa dhulka iyo waxaa culumtaala dhulka barta, dhulka socdaba ilaahay subxana wa tacaala leeyahy. haddaad wixii o dhan adigu aad samaynayso waxaad noqonaysaa tusaale wanaagsan dadkuna ay dhageystaan. qofka kaalinta koowaad gala waxay dadku intooda badan sameeyaan inay dhageystaan. marka qofka aqoonta u leh meelo fara badan si sahlan ayaa loo dhageysanayaa. haddii uu dhahdo dadka war ilaahay ka baqdana way dhegeysanayaan oo way maqlayaan. daliilka lixaad, ilaahay waxa uu ina faray ixsaan, oo ilaahay waxa uu ina faray jaangoyn. ina allaha rasuulku wuxuu alayhi salaam ina allaha yuxibu idaa camila axadakum camalan an yutqinah. waxa ilaahay jecel yahay midkiin markuu sameeyo shaqo in uu shaqadaa habeeyo, in uu shaqadaa sugo oo uu miisaamo. daliilka toddobaad, islaamku waxa uu xoreeyaa caqliga. intee jeer ayaad qur-aanka ku aragtay lacallakum tatafakkaruun, in kuntum tacqiluun, haddaad tihiin kuwa caqli leh, haddaad tihiin kuwa fakeraya. caqliga in la isticmaalo ayaa qur-aanku inagu booriyey. sidoo kale arrimaha ugu khatarsan sida caqiidada oo kale, caqiidada ugu muhiimsan ayaa ilaahay doonay in caqliga lagaga shaqaysiiyo. waa ka ilaahay subxaana wa tacaala le tusaale ahaan alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naara, ilaahay waa ka idinka dhigay geedka akhtarka idinka sameeyey dab. macnaha siduu isaga soo horjeedaan geed akhtara oo biyo ka buuxaan ay ilaahay dab inooga soo saara ama dab inooga keenay. marka waxaa la isticmaalayaa miyaanu ilaahay awoodin hadduu saas sameeyey inuu macnaha dadka dhintayna soo nooleeyo. marka caqiidadii maxaa tusaale ahaan looga soo qaadanayaa in caqliga qofka lagaga fakersiiyo oo lagaga shaqaysiiyo. daliilka sideedaad ama ugu dambeeya waa taariikhdeena cilmiga ah. dowladihii umawiyiinta, cabaasiyiinta iyo cusmaaniyiinta dhammaantood waxa aasaas u ahaa amaba sees weyn u ahaa cilmiga. waxa u horreeyey cilmiga diinta, hase ahaatee waxa ay ku horumareen oo dadka oo dhan ay ku maamuli jireen aqoonta nolosha sidaasi leeg. xataa dowladaha maanta sida Turkiga iyo Malaysia, dowladay ka horumarsan tahay dowladaha muslimiinta waa midood waa taa ay ka aqoonta badan tahay. ma aha aqoonta diinta oo qudha ee aqoomaha kale sida aqoonta dhakhtarnimada, aqoonta injineernimada iyo aqoonta macnaha xoolaha lagu maamulo economiga oo kale. ugu dambeyn taariikhdeena dhowr tusaalayaal. Maamuun oo ahaa madaxweynayaashii muslimiinta hore waxa uu siin jiray miisaanka kitaabka oo dahaba haddii uu turjumo kitaab aqooneed. qofkii turjumo kitaab aqooneed waxaa la siin jiray miisaanka kitaabka oo turjumay oo dahaba. abu yacquub yusuf almarini ninkaa la yidhaahdaana oo hogaamiye isaguna muslimiyeed waxa uu kutub aqooneed ku bedeshay maxaabiistii kristanka ahaa ee uu soo afduubay. cabaas alfirnaas ninkaa loo yaqaano halkii yurub lagu leynayay culimada ambaba lagu leynayay sida galileo oo kale, raggaas la gubayay iyagoo nool, kiniisadu ay gubaysay. muslimiinta dhinaca kale cabaas alfirnaas xiliyo ku beegan ayaa waxa u makhraati kacayay boqorkii dowladda markii lagu tuhmay sixir iyo waxyaabo lamida.
waxa uu yidhi ninkan waa nin wanaagsan, waa nin aqoon-yahana oo sidaas. macnaha muslimiintu sidaas ay u ixtiraamaan dadka aqoon-yahanka ah. weliba aqoon-yahanka ma aha qura diinta aqoon-yahanka oo dhan. marka waxaan idinku boorinayaa mar koowaad iyo mar labaadba in aqoonta kor loo qaado, aqoonta kor loo mar walba la isku dayo in wax la barto, aqoonta diiniga lagu bilaabo, hase ahaatee aqoontii kale qofku uu isballaadhiyo, aqoontii kalena uu wax ka barto, qofki uu go'i karaya labada aqoon midna uu go'o. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mar kale ayaan ku kulmi doonaa barnaamijkeena wadankeena وحبر. subscribe, share, like garee page-kayga. Waad mahadsantahay.